weligaa ma isweydiisay sababta maqaarka dabiiciga ah ee idaha uu qaali u yahay? xaqiiqdu waxay tahay in maqaarka cusub aan si toos ah loogu diri karin warshada tolidda. haddii aan si sax ah loo daaweyn wuxuu bilaabaa inuu qudhmo maalmo gudahood. sidaas darteed isla marka maqaarka laga siibo neefka waxaa lagu rusheeyaa cusbo. cusbadu waxay joojisaa qudhunka waxayna ilaalisaa maqaarka inta lagu jiro gaadiidka. marka uu warshada gaaro hargaha cusbaysan waxaa lagu shubaa durbaan weyn oo wareega si looga saaro cusbada dheeraadka ah. kadibna waxaa bilaabma nadiifin dhowr marxaladood leh. hargaha waxaa si isdaba joog ah loogu qooyaa loona dhaqaa si tartiib ahna looga saaraa wasakhda iyo ciidda ku dheggan dhogorta. gudaha mashiin gaar ah mindiyo awood badan ayaa si joogto ah u garaaca una rogrogaya hargaha si biyuhu ay ugu dhex galaan qayb kasta oo maqaarka ah. laakiin marxaladda ugu adag ma aha dhaqidda ee waa ka saarista dufanka. dhinaca gudaha ee maqaarka waxaa ku haray lakabyo dufan iyo hadaagii unugyada jidhka kuwaas oo lagu nadiifiyo mashiin gaar ah. marka xigta dhinaca haragga waa la xoqaa la simaa kadibna waxaa lagu kala bixiyaa looxyo alwaax ah ama bir ah. hargaha tayada ugu sarreeya waxaa mar kale loo mariyaa hab jilcin khafiifin iyo sifayn dheeraad ah taasoo ka dhigaysa inuu noqdo mid ballaaran dabacsan islamarkaana aad u jilicsan marka la taabto. ugu dambayn shaqaaluhu waxay hargaha u gooyaan qaybaha jaakadda sida qaybta hore qaybta dambe gacmaha iyo qoorta kadibna waxay isku tolaan si ay uga sameeyaan jaakad dhammaystiran.